madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 25-kii bishan xilka ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa ilaa 2014 ahaa hogaamiyaha dacwad oogista kiiska muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. xilka qaadista Axmed Cali Daahir waxay ku soo beegantay 2 toddobaad kadib kulan magaalada Nairobi ay ku yeesheen madaxweynayaasha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta oo war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Kenya 15kii bisha lagu sheegay in muranka badda ee labada dal ku xalismi doono hab raalli laga wada yahay. inkastoo war-saxaafadeed ka soo baxay ka duwanaa madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya, xilka qaadista xeer ilaaliye Axmed Cali Daahir waxaa ka horeysay in dowladda Soomaaliya hogaaminta kiiska ka wareejiso qareenadii hore oo difaacayay Soomaaliya, gaar ahaan Muna Sharma oo ahayd gabar khabiir ku ahayd door weyn ku lahayd in Soomaaliya ku cadcadaato dacwadii la qaaday 3 sano ka hor. dadka dhaliila siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda uu hogaamiyo waxay ku eedeynayaan in dowladdu ka soo dabacday mowqifkii ay horey uga taagneyd arrimaha badda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. haddaba maxay ka dhigan yihiin tallaabooyinkan dowladda Soomaaliya ay qaaday iyo Kenya oo dabcisay cadaadiskii ay ku haysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? ma dhici kartaa in maadaama dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka soo dabacday mowqifkii adkaa ee ay ka taagneyd arrimaha badda ee muranka xoogan dhaliyay ee muddooyinka badan u dhaxeeyay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya? haddaba daawada sidee u aragtaa xilka qaadistii xeer ilaaliyihii guud ee qaranka Axmed Cali Daahir? mase kula tahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in dacwada badda laga soo wareejiyo maxkamadda caalamiga loona soo wareejiyo hab labada dowladood ay ku wada hadli karaan oo lagu xallin karo